mise qaban kartaa maxaa dhahday koobkaan ma caawin kartaa haya waad edab darantay ma taqaanaa qofka la hadlaysid shaqaale xun aad tahay shaqadaada ilaasho ninkan waa nin u socda in la dalacsiiyo aniga oo kale maxaa xanal imaanin Arman, take it easy. استيج ساحب محرقة. iga hor leex qoftan garaariya عادي ساحب. فيري ولا شيء. It's okay. hadalka walaalkii aniga ka raali karina okay walaashay shaqo waa shaqo taada haysta teena haysana waxba ha isliidin shaqadaada inaan qabsata ku rujeyna sareen wax la dhaw ma jirto nolosh waa sinaan okay ama sante yo arman waay has gabadh u dhaqan saaxib hey wax ma ku sheegaa wax ceeb la dhaho ma jirto wax fahmaysaa waay way ogtahay inaan ka sareeyo adigana waa ogtahay soo maaha nolosha sareen maaha saaxib waa kuwa naga hooseeya waa inaan caawiyo garab siino waa sareen caawinaadan aad sheegaysid idaacadnimada marar qaar noloshaad khataray gelin kartaa armaan maanta mid aan kuu sheego hadda ka hor oday aqlilo ah waxaan ka maqlay asigoo leh nolosha cadaalad iyo sinaan ayay ku fiican Aniga tahay ma geedka aad beerato mirihiisa ayaad guranaysaa waxaas waa kuwa inaga faahfaahin hooseeya waa inaan garab siinaa maanta xaggan shaqo u joogaa inaan qof caawi u imaanin dooqa adiga iskale qof intaan walbo kadib shaqadiisa waa inuu gutaa okay caawinaad maan ku weydiiyaa okay qof sorry caawinaad ma weydiin karo tan kale waxaa ogaataa inaad caawiso qofka adiga tomorrow wax kuu tari kara waxaan ku qasbanaa qof kastoo garab nooga baahan haddii aan awoodnin inaan caawino aniga waa ogahay tomorrow waxaa noqon doono qof aan wax kuu tari karin inaad caawiso waqtigaaga isaga luminin innagoo dhan ma ogin beritu waxaa noqonayno hey wax ma ku Noloshu sheegaa waa beri, maanta No, bis kuma eko. dilaac ma rabo aniga waa ogahay berit waxaa noqonayo cidna wax ma ugu baahni okay aniga qof walba caawinaad iiga baahdo waan caawinayaa xag Intaan inta awoodo. aniga uma imaan inaan qof caawiyo nafsadeeda inaan caawiyo u joogaa okay waa yahay waxaan kuu rajeynaa horumar wacan iyo shaqo wacan inaad guulaysid dhammaanta merta gabdhana caawinaya war miitna ka daasanahay soo mogid haddaan ka daahsanahana hadda madaxda shirkadda qof bini aadam oo dhibaataysan jidka ugu tagnaa adiga haddaan shaqaysan karin orod guriga hooyadaa aad fiiri nolosha qof bini aadan oo la caawiyo wax ka muhiimsan ma jirto fiiri walaash caadi ma tahay xagee ku socotee sabax ninkeena ku caawiya fiira bow saaxiibkaa warkiisa ma maqashid waa runtiis qof wax kugu soo kordhinaya la caawiya ani maxaa kugu soo kordhinayaa nolosha in wax laisku soo kordhiyo muhiim ma aha nolosha bini aadamnimo iyo caawinaa jirto waa maxay sababta qof walba uga fikiraya faa'iidada xagee kuu geeyaarataa ii sheeg in ku caawinaya dhib ma laha laakiin fiiri interview soo kama daahsanid waa caadi wax dhibaato ah ma laha okay nolosha bini aadamka qof kuu baahan in la caawiyo wax ka horeeya ma jirto xagee kuu geeya geedkan xagganaa dhigi rabay أهلا ولا مع السلامة يا macsiimo dadkan oo kale la caawiya oo waxtarka leh qof maskiin oo nolosha ka dhacsan weliga ha caawin soo dhawaada nasiib adiga barasho wanaagsan waxaana milkiilaha shirkadda Sam Real Estate waa ogaa waa yaabantiin xasleedin maxaa meeshan ka dhacaya waxaa arkaysiin ka dhacay meeshan so
adduunkaas sidaa waaye muhiimadda aan shaqaalinimadaas u jilaayay oo dhulka u xaaqaayay waxay ahayd inaan ogaado shaqaalaha shirkadayda ka shaqeeya qaabka ay u dhaqmaan iyo dadka u qalma inay ka shaqeeyaan shirkadayda sababtaas darteed ayaan shaqadaas u sameynayay soo haddana uma baahni inaa wax interview ama aan tartan idin geliyo soo hadda already waa ogahay qofka shirkadayda ka noqonayo managerka oo hantidayda aan u dhiibanayo muu baahni inaan interview ka qaado ama haddii koo imtixaan aan geliyo soo waxa aniga shaqadaas aan usoo qabanayay waxay ahayd inaan ogaado qofka saxda ah oo u qalma oo bulshadana caawin kara meeshaana si oo naxariis looga shaqayn kara hadda waa ogahay qofka saxda ah oo shirkadaydan aan u dhiibanayo maamulka hambalyo waxaad noqotay managerka shirkadda Sam Real Estate waxaan ku rajeynayaa shaqo wacan waxaana kaa rajeynayaa inaad sidaada hadda aad ahaan doontid oo dadka qaar aad noqonin waxaad tahay wiil naxariis badan sida anigii caawinaysay waan hubaa inaad qof walba caawinayso saasa shaqadana kugu doortay thank you so much soo dhow adaa isoo haray saa u xun tahay ku xumeynayay waxaa ku banaan laba optionka koowaad waa kan shaqada cleaninka meeshaan ka banaan optionka labaadna albaabku ku furan yahay bixi kartaa